filow jiitayaan dunida joogayne taariikhda kolkaaga dhegayso taariikhoba maanadidii. waa hagaaga dhegaystayaal heesta koofil talantaali codadkooda dahabiga waxaa isu dhaafsanayay caasha cuud iyo xasan sabriya afrax. waa erayadii khadar maxamed xaashiye naaxiyadii xasan greyt. reemaha iyo kabanku waa xasan, tumtumka iyo durbaankuna waa abwaan suufi xaaji shiikhow. heestaasina gelbis iyo horaan waxay u tahay barnaamijka hiwaayadda hanuunsan oo maanta aanu ku soo qaadan doonno dagaalkii dulmadoobe oo 1913 ku dhex maray daraawiishta iyo ingiriiska. waa naga xasuusinee barnaamijka hiwaayadda hanuunsan wuxuu yaalaaba dadweynaha ku hanuuniyaa hilinka toosan. mowduucaas oo toddobaadkii baad hal mar heshaan waxaa qora oo soo saara huruuse maxamed xaashi. aan ku bilaabo barnaamijka Richard Cofield wuxuu ku dhashay degmada Henor ee gobolka Derbyshire 27 Abriil ee 1882. isagoo aad u daayaro 6 sano jir ah ayuu geeriyooday aabihii. waxbarashadiisa hoose wuxuu ka bilaabay dugsiga Adame School ee Salisbury halkaas oo qoyskiisu ay ku noolaayeen. 1896 wuxuu ku biiray maxadka Marlborough. Mr. Cofield ma sii wadan waxbarashadiisa ee wuxuu shaqo dhinaca ganacsiga ka helay shirkad maraakiibta qaabilsan oo ku taalay Liverpool. Richard Cofield wuxuu ka soo shaqeeyay wadamada Koonfur Afrika iyo Nigeria. intii uu ku sugnaa galbeedka qaaradda Afrika wuxuu qayb ka ahaa askari iyo saraakiil cadaadis iyo iska caabinba kala kulmay waqooyiga dalka Nigeria. waxaa la sheegaa Cofield inuu dhulka Soomaaliya yimi xilligii ugu horeysay 1904 waqtigaas oo wax yar uu ku sugnaa deedna uu dib ugu laabtay England. horaantii 1912 ayuu Ingiriisku ka war helay in daraawiishtu degtay marinadii ganacsi ee berbera dhinaca bariga ka soo geli jiray. isaga oo diidan inay joogsadaan isu socodka ganacsi ee Burco iyo Berbera ayuuna abaabulay oo hirgeliyay ciidamadii SCC ee Somali Camel Constabulary kuwaas oo mar dambena loo bixiyay Somali Camel Corps. ciidamada rukuubleyda waxaa madax looga dhigay dhamme Richard Cofield. saraakiisha tababarada bixinayana waxay ahaayeen British. muuqaal codaysan oo la duubay xilli tababar la siinayay rukuubleyda ayaa lagu sheegay in askarta rukuubleydu ay ahaayeen Soomaali. They have British officers, but their NCOs are Somalis. All are excellent marksmen. And although there are not many camel corps now in existence, they are particularly suited to this type of country. Am I boring you? markii daraawiishtu ciidan iyo xarumo ay yeelatay ee haykal dowladeed ay samaysteen ayuu Ingiriisku go'aansaday inuu la dhaqmo sidii laba dowladood oo isdhinac degan. barasaabkii Ingiriiska u fadhiyay dhulka waqooyiga Soomaaliya wuxuu amar ku bixiyay in rukuubleydu ka howlgali karaan Burco iyo agagaarkeeda sahankooduna uusan dhaafi karin beer. waraaq xilligaas daraawiishta Ingiriisku uu soo diray wuxuu ku yidhi sidan:
waxay ku socotaa sheekh maxamed cabdille xasan. waxaan ku ogeysiinaynaa inaannu helnay waraaqdaadii aad kaga hadlaysay fidmada ka dhex dhacday qabaa'ilka dowladda ingiriisku u taliso iyo dadkaaga. marka hore waxaan doonaynaa inaan marlabaadku ogeysiinno inaan dowladda ingiriisku doonayn inay la murunto dariskeeda ama ay farigeliso arrimahooda. hase ahaatee dowladda ingiriisku waxay filaysaa in dariskeedu sidaas oo kale yeelo. oo Richard Cofield sida lagu qoray buugga taariikhda daraawiishta wuxuu ahaa nin magaca daraawiishta aad u neceb. waxaa la sheegay inuu mar walba jeclaa inuu dagaal ku arko daraawiishta. umuurtaas waxaa xakamayn jiray baa la yidhi dowladda ingiriiska oo wadahadal nabadeed rabtay inay la yeelato daraawiishta. Cofield oo raba in loo fasaxo dirir uu la galo daraawiishta wuxuu u qoray ingiriiska sidan: arrinta gunta ah ee qosolka lihi waxay tahay inkastoo wadaadku uu safmar u soo weeraraya qabaa'ilka lagu sheego inaannu ilaalinno, ayaa haddana ciidamadayadii iska hoganayaan. qabaa'ilkiina dowladdu u diiday inay wadaadka ka argutaan, yada oo laga cabsi qabo inay fashilmaan wadahadallo la filayay in isaga lala yeesho. miyaysan taasi buu yidhi ahayn wax lagu qoslo? horraantii bishii Agosto ee sanadkii 1913 daraawiishtu waxay duulaan ku qaadeen ceelka Burco. halkaasoo ay rabeen inay soo ceshadaan hanti hadyad ah oo daraawiishta laga soo dhacay. dhamma Cofield oo raadinaya fursad dagaal oo daraawiishta ay isku arkaan ayaa weerarka daraawiishtu ay soo qaaday u arkay meerto xilliya dahabiya oo uu ku tabcayn karo abaanduulayaasha iyo dubcadda daraawiishta. Cofield wuxuu soo dumay ciidamo lixaad leh oo ay ka dhex muuqdaan ciidamadiisii rukuublayda. badhasaabkii ingiriiska u fadhiyay dhulka waqooyiga Soomaaliya Sir J.F. Archer waxa uu Cofield ku canaantay abaabulka ciidan ee uu wado iyo duulaanka uu rabo inuu daraawiishta kaga daba tago. waraaq uu Cofield u diray badhasaabku wuxuu ku yidhi sidan: inkastoo wax macno leh aysan dhicin, inkastoo kalsooni ay ku abuuri karto beelaha nala jaalka ah in ciidankeenu halkaa gaadho, haddana waxaa lagaga maarmaan ah inaannu ku dareensiinno marba marka xigta in rukuublaydu ka howlgeli karto oo keliya dhulka ku dhow Burco, kormeerkiisuna uusan dhaafi karin beer. waa berigii 9kii bishii Agosto ee sanadkii 1913 ayay daraawiishtu dareersadeen xoolihii ay soo qaadeen ee ay ku soo magdhowdeen hantidii laga soo dhacay. iyaga oo ka warhayeen qabaa'ilka deegaanka iyo ingiriiskuba ay soo raad raaceen oo ku soo raad joogaan, ayayna daraawiishtu isqaybiyeen oo noqdeen gaadh hore iyo heega dambe. waxaana ishor iyo hareer socday ilaa 5 ciidan oo iskugu dhafan Golweyne, Shiikhyaale, Miinaale, Taargooye iyo rag xun. ciidamadii daraawiishta iyo rukuublaydii ingiriiskuna waxay ku kulmeen kurta Dulmadoobe ama Ruuga oo ku taala tuulada in Afmadoobe ama magaalo yar. dagaalkaasna waxaa lagu dilay ammaanduulihii rukuublayda Richard Cofield. In 1913, its commander, Captain Richard Corfield, disobeys orders and leads an attack against the dervishes. Corfield is killed, his forces annihilated. Sayyid Muhammad commemorated the dervish victory with a poem. You have died, Corfield, and are no longer in this world. A merciless journey was your portion. In that other world, tell your companions how God tried you, and say how the dervishes were like thunderbolts of a storm, rumbling and roaring. dadweynaha ingiriisku dareen muruga huwan ayay qalbiyadooda ku abuurtay markii ay warsidayaasha ka arkeen dhambaal tibaaxaya guuldarro ba'an oo ku dhacday ciidamadii ka dagaalamay Dulmadoobe. 14 bishii Oktoobar ee sanadkii 1913 warsidaha The Mercury wuxuu faalo dheer ka qoray dilkii Cofield sida uu u dhacay iyo tirada ciidamada ka qayb qaatay dagaalkaas. baarlamaanka ingiriiskuna wuxuu dilkii Cofield ka badhigtay dhingad xanuun badan oo uu la dhaco dhabarka xukuumadda Laybarka. dhaqanaan gaboobay soo jiray guyaal badan wargeesu leenahay aya garabka ii suran oo hoobay gulla maqadi weeyaan.
daraawiishtu markii ay taleex ku soo laabatay waxay ka warbixiyeen qaabka dagaalku u dhacayo sida ay guusha ku heleen. Ismaaciil Miro oo ahaa baandulayaashii ciidankaas ayaa warbixinta dagaalka ku soo koobay gabay tilmaam sugan ka bixinaya marinada iyo deegaamadii ay sii mareen ilaa ay ka gaadhayeen Dulmadoobe. hoye annagoo taleexna aljahaad talaadii soo qaadnay. Ismaaciil Mire markii uu gabaygaas mariyay ayuu Sayid Maxamed Cabdulla Xasan isaguna tiriyay gabaygiisa caanka ah ee Koofil. koofilow jiitayaan dunida joogayne adigaa jidkii lagugu waday jimiclaaneede jahaanamu la geeyo wada akhiro jahaane nimankii jannuu kacay warbay jiriin ishalleeyeen kuwaasa naarta joogiyo markaad janaanadii gaadhid siduu eebbahay ku jirrabay mari jawaabteede nimankii aakhire aaday ee daraawiishta ahaa koofilow haddaad u tagto war bay sugayaane ingiriis iyo daraawiish waxa kala raacay fariinteeday sugayaane annaga wax nagama dhibanay adaa dhintay u geewi. kaasi wuxuu ahaa Cabdulqaadir Xirsi Yamyam oo tafsiir ka bixinayay gabaygii Koofil. carabkeen gablool waa maangu racan waa la gaasiree aashaa u gudub gabayga waan jeclahay waa gaddaan rabee midkaan maanse garan ma gubuu ahaa maye waa gu kale waa gugee walaal midkii halac ma garan ma adabaha gelin erayaa gadmada gabaygaa lahaa garab baan rabaa garashaan hayaa waa gaddaan rabee qaamuus guddoon gallad baan hayaa eebbaa galladay qaamuus gartoo waa gaddaad rabtee haddaad jawhartii aragto waa qaafadii daraawiishta ahayd haddaad aragto raggii dhintay uge shuhadadii. gabayga Koofil oo la turjumay waxaa la geeyay London. taasina waxay keentay in abwaan Sydney Low oo Ingiriisihi uu tiriyo gabay baroordiiq ah oo uu kaga hadlayo Koofil. abwaan Sydney wuxuu yidhi We strike the praise, the fail, and dim. Not whole finds it is the dream that they hold us beyond our ken, near us from the whole of them. Do we not know that the death is wise? riyadayadii inaanay ahayn gebi ahaanba waxaan jirin taasoo ay tahay in dadkii naga qarsoomay ay maqlayaan daryaanka dadka dunida ku nool. qalbiyada murugsanow indhaha aad wax u fiirinayo miyaydan aqoon in geeridu ay tahay abaan waxgarada. geeridu way naxariis badan tahay maxaa yeelay way dhigtaa daah u dhexeeya annaga iyo qaraabadayadii dhimatay kaasoo ka reebaya qaniinyo kulul oo ah faan cambaar leh iyo been sumaysan iyo magacyada iyaga qiimaha u lahaa ee la iska geeyey. sow xaq ma aha inaynu ammaanno geesigii dhallinyarada ahaa oo jiifa qabrigiisii lamadegaanka looga qoday. sow nagumay habboonaa inaannu nidhaahno wax kastaba ha ahaatee wuxuu u dhintay sidii waajibka ku ahayd in nin ingiriisihi u dhinto. waa inaynu diidnaa in magaciisii si qarsoon loo hadheeyo ama la dafiro magacaan ah oo marxuumku u baahan yahay. naso nafta geesiga ahey hana ogaan inaannu yasnay deeqsinimadii naftaada. geeriyay jilicsanay ka celi isaga hurdadiisa cododkayaga xishoodka daran leh. sidaas waxaa yidhi abwaan Sydney oo Ingiriis ah. toddobaadka dambe dhegaystayaal haddii rabbi uu raalli ka noqdo waxaad ku maqli doontaan barnaamijka sheekooyin aanu kaga hadlayno qalcaddii aamin ee sanadkii 1913 daraawiishtu ay ka dhisatay beledweyne taasoo madax uu ka ahaa xaaji maxamuud macalin cagadhiig.
sida barnaamijkaad ku soo maqasheen daraawiishtu sanadkii 1913 ayay burcad duleedkeeda ku dileen koofil. isla sanadkaasna waxay ciidamadii hormadiid ee cadda baxar madaxda uu ka ahaa ay kala wareegeen maamulkii beledweyne. taas macnaheedu wuxuu ahaa in daraawiishtu sanadkaas ay saamayn muuqata ku lahaayeen inta u dhaxaysa burco ilaa iyo beledweyn. sheekooyinka dhegaystayaal barnaamijkan aad ku maqasheen intooda badan waxaan ka soo minguuriyey kutubka taariikhda daraawiishta ee 1976 uu daabacay qoraaga awjaamac cumar ciise. buuggaas oo dukaamada soomaalida iyo laybareeriyadaba yaalla awjaamac cumar ciise waxa uu haatan ku turjumay luuqadda af carabiga. manaha buuggii u horreeyay ee uu af carabigu ku qoro ee waxaa jira ilaa 6 buug oo uu af carabigu ku qorayay teer iyo lixdamaadkii. 1965 ayuu qoraagaasi qaahiro ku daabacay buugga taariikhda Soomaaliya. isla sanadkaasna wuxuu qaahiro ku soo saaray buug uu kaga hadlayo taariikhdii SYL. waxaa kaloo jiray buug af carabigu ku qoran oo uu 72kii thawradii ama sakacaankii 22kii Oktoobar kaga sheekeeyey. kutubta uu af Soomaaliga ku qoray waxaa u horreeyay buugga diiwaanka gabayadii Sayid Maxamed Cabdulla Xasan ee 1974kii uu Muqdisho ku soo bandhigay. marka laga yimaado buugga taariikhda daraawiishta ee 76kii uu qoray waxaa kaloo jiray 2 buug oo uu maansooyinkii hore ee Soomaalida kaga sheekeeyey iyo weliba buug kale oo uu Mombasa 95kii ku soo bandhigay kaas oo uu kaga hadlay qaranjabkii Soomaaliya. warbixinta kooban ee kutubta awjaamac ku saabsan dhegaystayaal dhammaad waxay u tahay barnaamijkii hiwaayadda hanuunsan. waxaa idinla socodsiinaya anigoo Khadar Maxamed Xaashi ah. mar dambe intaynu kulmi doonana waxaan dhammaanba idin leeyahay nabadgelyada naxariista eebbe iyo barakooyinkiisu ha idin ahaadeen. heeska hadda aan duubaynana waxaa la yidhaahdaa daraawiish. waa ereyadii Khadar Maxamed Xaashi, naaxiyadii Xasan Gareed, codka waa Cabdifataax Maxamed, xagga ridimka iyo tamtamka gurbaanadana waa Sidow. dhegaysi wanaagsan heeskii.
taleexbaan degmadii taleexbaan dunjigeeda soo yaal darsayaa haddee dunjigeeda soo yaal darsayaa haddee duubcaddiyo ustaadkii diinta iyo dalkeennaba duubcaddiyo ustaadkii diinta iyo dalkeennaba kuwii dayrka uu ahaa kuwii dayrka uu ahaa digri baanu marayaa jannadii dugsoonayd digri baanu marayaa jannadii dugsoonayd inay wada durduurtaane digri baanu marayaa jannadii dugsoonayd digri baanu marayaa jannadii dugsoonayd inay wada durduurtaane ayaan soodangiiga daar ilaalo guudkeed ayaan soodangiiga qalcadii daraawiish ayaan daawanaya qalcadii daraawiish ayaan daawanaya degmadii dalkaygay degmadii dalkaygay dushaaday duqeeyeen dushaaday duqeeyeen diyaarado lalaaye diyaarado lalaaye